bahda saxaafadda runtii oo had iyo jeer u taagan inay dadka gaarsiiyaan wararka qorax u taagan soo jeeda aad baan u bogaad aad baa mahadsantii kaalmadan ka timid Boosaaso oo 1200 ah runtii aad baan ugu mahadcelinayaa maxaa yeelay Boosaaso waa markii labaad wax laga keeno Boosaaso iyo Qarri waa laba magaalood oo isku dad ah isku hela dadkana isugu xiga deegaanana isugu xiga runtii inay gurmadka u horeeyay iyagu ahaayeen haatan gurmad badan ay keenaan aad baan uga mahadcelinaynaa jazaakumullahu khayran baan leenahay markii horeysay bay ahayd deeqdii u horeysay waxa keenay maayirka magaalada Boosaaso haatanna deeq fara badan bay keeneen taa waa mahadinaynaa runtii meeshaan hawl ka dhacday hawsha in badan baa lagu celiyay kama sheekeynayno laakiin in wax qaldamaan xaaladda degdega wax loo diyaarsanaa maaha marka hawsha la gelayo wax waa qaldami karaan wax isla mari karaan waa wax caadi ah laakiin sida la sheegay dadka inta badan way soo gaareen wax way gaareen waxa iyaguna xusid mudan dadka faafinaya waxyaalo aan sax ahayn fiiri qofku ma wiil wax ku duubaya ummaddu ku sii daynaya hadda raashinka la qaybinayay oo la leeyahay waa raashin la qaybiyay dadkii gajeelku ka xirmay oo raashinkoodii iyagu leh oo la siiyey ayaa deerka ka turtuuranayay laakiin raashin la boobaya maahan waynu ognahay raashin dadkii ruuxooda la siiyey dadkii la siiyey baa deerka kala dhacdhacayay laakiin ma ahayn raashin meel laga boobay labo raashin ma ahayn la dhacay ma ahayn labo kaararku alminhaaj kaarkay bixiso iyo kaarka ay bixiso guddiga raashinka qaybinayay waa kala duwan yihiin waa laba kaar oo kala duwan marka in loo qaato wax iskhilaafsan ma aha waa alminhaaj iyo guddiga qaybinayay raashinka marka arrimahaas waa arrimo kala duwan waana la ogyahay waa laba kaar oo kala duwan alminhaaj iyadoo guddiga ay la socdaan ayay wax qaybinayaan kaar gaarana way bixinayaan marka kaarkaas waa kaar gaara kaarka guddiga taakulaynta oo dadka wax u qaybinayana iyaguna kaarkoodu waa kaar gaara waana isku dirxiraa wax dhibana kama jiraan kala duwanaanshahaasna in cilad laga dhigo maaha bish Ramadaan baynu ku jiraa dadka xumaanta faafinaya ilaahay ka baqeen meeshaan khalad waa dhici kara shaqadan shaqo loo diyaarsanaa ma ahayn dad baa soo fatahmay dadkii baa wax loo qaybinayay khalad waa dhici kara waayo wax loo diyaarsanaa oo dadku liiskareysnaa oo habaysnaa maaha laakiin khaladka hadda la sheegayo waa khalad la buunbuurinayo oo inta filin la duubo dad raashin derbi kala dhacayo oo ganjeelka ka xidhan yahay oo raashinkooda iyaga la siiyey way wax noocaas wax hadda laga dhigaya wax shida ah marka dadaalku waa jira akhdaana waa dhici kartaa laakiin sida ugu fiican baa loo dadaalaya markasta mar ka dambaysana waxbaa la saxaya marka shaqadu saasay socotaa waan bogaadinaynaa in alla intii ka qayb qaatay hawshan dadka wax qaybinaya ee qoraxda u taagan ee ilaahay dartii iyagoo sooma wax qaybinaya oo waliba qaybtooda xanuunka ku dhacay la sheegayay iyagoo dadaalaya buuqii iyo isku dhex qasnaantii ay keentay inay xanuunka xataa ku dhaco dadkaas in loo cudur daaray u baahan yihiin in la ammaanay u baahan yihiin in la bogaaday u baahan yihiin iyaga iyo saxaafaddaba aad baan ugu mahad